بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرنا ويدينتن what are the causes of inflation أما وام حي والحها سبب سعر بركة وحانا لو كلا سارا لبن نوع أو كلا كو cost push inflation لبو demand pull inflation أن كوهر مرنو إن أنقحنو cost push inflation وسعر برر كرنشا مركة أي سراء كعان والحها أساسي قوة وحسوسارك تصالي warshadaha waxa ay adeegsadaan shidaal si ay u soo saaraan badeecadaha kala duwan haddaba marka qiimaha shidaalka uu sare aado waxa ay keenaysaa in qiimaha wax soo saarka uu sare aado taasna ay keento sicir barar waayo qiimaha shidaalka ku saa'iday waa in la saaraa badeecada oo macmiilka haddii uu shaygan ku gadan jiray $100 waxa dhacda in uu bixiyo tusaale ahaan $110 oo $10 ee dheeriga ayaa loo yaqaanaa cost push inflation xog dheeraada oo ku saabsan sicir bararka ka dhageyso lifaaq hoose oo aan hadda kor kaga soo hadalnay markana aan u soo laabanno inaan ka hadalno qaybta labaad ee keenta imaanshaha sicir bararka midda oo ah demand pull inflation waxaana keena jiritaanka horumar dhaqaale oo marka ay dawladda suuqa ku soo deyso lacag badan waxa hoos loo dhigaa dulsaarka oo haddii interest rate-ku uu ahaan jiray 6% hadda hoos ayuu u dhacayaa oo wuxuu gaarayaa 3% tusaale ahaan marka hoos u dhacaa dulsaarka waxa uu awood u siinayaa dadka inay lacag deynsan karaan si ay sare ugu qaadaan heerka noloshooda iyo ganacsiyada haddaba waxaa imaata in baahida dadka ay u qabaan badeecadaha iyo adeegyada kala duwan ay sare aado suuqana aanu oolin wixii lagu dabooli lahaa baahida waxaana dhalata inay dadku ku tartamaan sidii ay u heli lahaayeen adeegyada iyo badeecadaha marka demand pull inflation waa qeexidda haddii aad maqashay inflation is too much money chasing too few goods or services oo waayo lacagta suuqa taalla ayaa ka badan alaabtii adeegyada insha Allah cashirka kan xiga ayaan kaga hadli doonaa sida loo cabiro sicir bararka maadsanidin waa inoo markaa haddii rabbi idmo